maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago bisha Shacbaan oo hadda aan ku jirno acmaasha la sameeyo maxaa waaye waxa ugu fiican oo la sameeyo nabiga sallallahu alayhi wasallam sameyn jiray maxaa waaye alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wajigtan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa xalaqadii ugu horreysay oo ahayd bisha Shacbaan iyo axkaamteeda xalaqadii la soo dhaafay dhammaadkeeda waxaa isweydiinay su'aal acmaasha ugu fiican oo la sameeyo maxaa waaye jawaabtiina waa tan insha Allah bisha Shacbaan acmaal khaas oo nabiga sameyn jiray ma jirto ama uu badin jiray bilax kale uu sameyn jirin jawaabteedan waxaa waaye haa عائشة أنا جوابي سيد أجيست حديث كان صحيح البخاري وكجرا عائشة رضي الله عنها وحيلاده لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر من شعبان يصوم شعبان كله عائشة وحيلاده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بش شعبان بالأوكسوم بدنا ملها شعبان كل جيد وسوم جري معنى هذا وحاوى غالب كيد وسوم جري كل جيد وحير وحان كهين وودا سومي جري النبي صلى الله عليه وسلم marka bisha Shacbaan waxa laga baahan yahay soonka inaan badino laakiin su'aal kale isweydiino nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam muxuu badin jiray bisha Shacbaan inuu soomo sabab miyaa jirto jawaabtana waxa waaye haa sababa jirto oo nabiga sallallahu alayhi wasallam u badin jiray soomka bisha Shacbaan وحانا ويدينا سؤاشاس أسامة رضي الله عنه حديث كان وحو كجرى صحيح الجامع أسامة رضي الله عنه وحولي قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور أكثر ما تصوم من شعبان كمانا أركن أتكصهم بضنتهي بش شعبان محاجر النبي صلى الله عليه وسلم وحولي ذلك شهر يغفل الناس عنه taas oo Shacbaan waa bil dadka badi ay gaafiliin ka yihiin bayna Rajab wa Ramadaan Rajab oo ashhurul hurum bisha Ramadaan oo weyn dhaxdooda ayuu ku jiraa wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin bisha Shacbaan waa bil amalka la qaado oo rabbil alamin ka ilaahi loo geeyo fa uhibbu أن يرفع عملي وأنا صائم وحان جعلها عملكي إلا قاض أو إلهي لوجي أنيقو صوما حتى بس سؤال كان اسويدينين حكمة كجرت محاواي بش شعبان صومك إلا بضيع علوم ذنا ويكحت لين صببت النبي محمد صلى الله عليه وسلم صومك وبدي جري حكمة كجرت إنه النبي صلى الله عليه وسلم صومك بضيع محاواي حكمة كوبات وبال أي دتك بدي غافلين كيهين يعني دتك بدي لكم مديجان بشهر رجب كسوة بحين وأشهر الحرم قفوا البنواء أردت مركي بشهر رمضان سوداء قفوا بحول رمضان صوت صعد رمضان وأسوسي ديارنا بشو حتى كجرا وبه الماما با نبي صلى الله عليه وسلم وحونه شيء عملك الله سميه وقتي غفلة وكأجر بدنيه أما وكقيمة بدنيه عملك الله سميه وقتي دتك بدي سيناين example أنكو سينا قيام الليل كمركاتو كنيسد وكقيمة بدنيه محو أغا قيمة بدنيه متقالة لأن دتك بدي وقتي جاس غافليني كيهين ما بقوا ما ويجيفان أديك واسو كعضي مركاسا سمين ويسا بش شعبان دتك بدي غافليني كيهين مركا وحاربتا إنا ترى إلهيو أنيك واسو حسوستي حد أضان عملك كو سمين ويا marka camalka waqtigaas la sameeyo uu ka ajir badan yahay camalka waqtiyada badis salaad jimco kala la sameeyo ama soonka la soomaa bisha Ramadaan dadka dhan wada sooman faa'iidada labaad ama xikmada labaadna waxa waaye camalkaaga ilaahi loo geeyna waxa fiican marka camalkaaga in la geeyo ama la xiro soon lagu xiro hadii la yiraahdo camalkan maxaa ugu dambeeyay maalintaas uu sameeyay Ahmed ama Hebla uu sameeyay maxaa waaye وصونا صونكنا وأعماش إلهي سبحانه وتعالى جعليه وأعماش أقوى وين وايه سيدا درتيت صونك بدي بش شعبان أو غافل هالنقونين فإذا ذا سدحات أما حكمة ذا سدحات كجرت بش شعبان صونك إلا بدي وحاترين الأسي قليسة أم أسي توبرنيسة بش رمضان صونك بش شعبان واجب كوما أهن
laakiin waa lasii qabsanaysaa. bisha ramadaana soo socoto weyn oo culus oo hal maalin aadan ka tegi karin, sabab la-aan aadan ka tegi karin. marka inaa isu sii tababartid way fiican tahay. soo maadan arkin markuu qofka rabo inuu exercise sameeyo, marka hore waxaa si tartiib u bilow. banooniga hadda markay rabaa inay ciyaaraan kuwa hore tartiibaa loo ordisiinaa. markaa rabtay exercise inaa bilad waxaa loo marka hore tartiib u bilow kadibna orod. jismiga wuxuu u baahan yahay wax walba inuu la qabsado u baahan yahay. bisha shacbaan soonkeeda marka waxay ku sameynaysaa ama kaa dhigaysa inaad la qabsatid 30 maalmood ama 29 maalmood soo socdo. xikmada afraad ama faa'iidada afraad waxaa waaye acmaasha ay ka horeeyaan sunan rawaatib oo kale, ay ka horeeyaan camal waajib ka horeeya ama ka dambeeyo, way ka fadli badan yihiin acmaasha kale. hadda salaadaha oo kale fiiri, salaada waxaa jirto sunnooyin la yiraahdo sunna mu'akkada oo 2 rakac salaad subax ka horeyso, ama 4 salaad duhur ka horeyso, ama 2 ka dambeyso, ama 2 maqrib ka dambeyso, ama 2 cisho ka dambeyso. way ka fadli badan yihiin salaada waqtiga kale la tukanayo. waa sunno waaye, kana sunno waaye, laakiin kan wuxuu ku xiran salaad waajib uu ka horeeya ama ka dambeeya. marka soonka shacbaan la sameeyna bisha ramadaan waajibay ka horeysaa. 6 maalmood oo shawaal la soomayna bil ramadaan waajibay ka dambeysaa. taas waaye fadli gooni uu leeyahay inuu si gooni loo sheegay. طيب سؤال kale isweydiinayna, bisha shacbaan fadligeeda waa maxay? jawaabteeda haddaa rabtid inaad ogaatid waa inuu bir insha allah tacaala. ilaa xalaqada biri laga gaarayene waxaan kaa codsanaa 2 arrin. kow, dhageyso cajalkii lasoo dhaafayna muhiim waa kuna camal fal. tan labaadaan kaa codsanayna waxaa walaalaha kale usii sheergaray, walaalaha kale usii gudbi, ama afkaaga sheeg ama cajalkan u gudbi. khayr allah ku siiyo. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. الدال على الخير كفاعله. قفك هدو قفك خير كلا تصو أسيقو سميه كلا لمتح. هذا قف وشيك تصون تراد أوصومو أجركي سواهليسا، أنا أجركي واهلا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وإنه بري إن شاء الله تعالى. وعليكم ورحمة الله وبركاته.